السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa halkan idinkula wadaagayaa xog rasmi ah oo aan kana helnay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba maxay tahay xogtaasi? maxaase toddobaadkii aynu soo dhaafnay si toos ah habeen iyo maalin uga socday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya? maxay yihiin qodobada la falanqeynayay? halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. ha yeeshee waxaa marka hore idinka codsanaynaa inaad muuqaalkeena sii gudbisaan, laygareysaan, sheergareysaan, lana sii wadaagtaan asxaabtiina haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran hadda kusoo bir boggeena. sida aan ogaanay toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka dhacay kulan looga hadlayay ajandooyin kala duwan oo ku saabsan arrimaha dalka, gaar ahaan waxaa xoogga lagu saaray arrimaha dagaalka iyo hubanti la'aanta ka jirta xagga iyo ciidamada. madaxweynaha ayaa go'aan ku gaaray in xaalad degdeg ah dalka la geliyo, shaqooyinka dowladana loo wareejiyo dhinaca iyo abaabulka ciidamada iyo dagaalka, isla markaana xafiisyada ugu weyn ee madaxda dalkana ay ku shaqeeyaan goob loogu talagalay oo aan rabin inaan halkan kasii sheego aniga oo ilaalinayo xogta iyo arrimaha amniga darteed. kulanka waxaa la sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhagay lagana fujin waayay in dalka uu geliyo xaalad degdeg ah oo dagaal ah si inta aan la gaarin doorashada dalka guud ahaanba gacanta dowladda loo soo geliyo gobolada Galgaduud, Bay iyo Bakool, Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Shabeellada Hoose iyo guud ahaanba inta ka maqan gacanta dowladda federaalka Soomaaliya si sanduuqyada loo gaarsiiyo. haddaba su'aal ayaa dul hubanaysa arrintan oo ah, haddii xaalad degdeg ah dalka la geliyo, dowladda federaalka Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in guud ahaanba gacanta ay ku dhigto dalka? qaybta hoose aragtidaada uga dhiibo. waxaase jirta in arrintan la isku waafaqay oo waqtiga ay noqoto oo aan la shaacin dalka la gelin doono xaalad degdeg ah oo dagaal ah, isla markaana ay hubka qaadan karaan qof walba oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed si dagaalka dowladda ay ku jirto loogu guuleysto. haddaba adiga ma ka mid noqonaysa haddii arrintan ay dhacdo dadka hubkooda qaadanaya ee shacabka ah ee dowladda garab istaagaya xaaladan degdega ah ee la qorsheynayana ka qayb qaadan doona? mar kale muuqaalkana sii gudbiya, laygareeya, sheergareeya, lana sii wadaaga asxaabtiina.